بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسمي واسم حكومة سوماليلاند والشعب سوماليلاند نرحب بضيوفنا الكرام بمناسبة الاحتفال معا باليوم الوطني لسوماليلاند، ونرحب بنواب البرلمان الفنلندي النائب كيمو كيليونين والنائبة ماريا كوزينينا ونائبة محافظة هلسنكي يوهانا فارتياينين، المرشحين أيضا لانتخابات البرلمان الأوروبي. كما نرحب أيضا بمسؤولي اتحاد المهاجرين بفنلندا، رئيس الاتحاد نورس، ونائبة اتحاد المهاجرين الأخت إخلاص، ومن الجالية العراقية الأخ سلام. سوماليلاند أرض الصومال استقلت في 26 يونيو عام 1960 من الاستعمار البريطاني، وخلال 5 أيام ما بين 26 يونيو و1 يوليو في عام 1960 تم الاعتراف بها من بين 35 دولة، من ضمنها اليابان، غانا، مصر، فرنسا، إثيوبيا، ليبيا والاتحاد السوفيتي. في 1 يوليو تم الاتحاد بين الدولتين، وفي عام 18 مايو 1991 تم إعادة استقلال سوماليلاند، حيث كان الاتحاد بمحض إرادة سوماليلاند، وأيضا كان إعادة الاستقلال بمحض إرادة سوماليلاند. سوماليلاند أرض المحبة والسلام، سوماليلاند حكاية الزمان والمكان، سوماليلاند لا مثيل لها من الأوطان، فنحن نحيا بها بمحبة وأمان، وشعارنا لا عودة والمضي إلى الأمام. فيجب على العالم الاعتراف بها بكل ترحيب واطمئنان. كل عام وأنتم وسوماليلاند بخير ومحبة وسلام. On behalf of Somaliland government, Somaliland Liaison Office in Finland, Somaliland Finnish Network Association, and Somaliland Young Ambassadors, we are very honored to have you all in our 33th anniversary of Somaliland Restoration Independence Day. We are welcoming our special guests, members of the Finnish Parliament, MP Kimmo Kiljunen, MP Maria Kuzinina, and Deputy Mayor of Helsinki Juhana Vartiainen, the Chairman of Finnish Migrants Union Nauras, Vice Chairman Ikhlas. Happy 18 May to all Somalilanders around the world. On 26 June 1960, British Somaliland gained independence as the state of Somaliland. During its existence, Somaliland received international recognition from 35 countries that included China, Egypt, Ethiopia, France, Ghana, Israel, Libya, and the Soviet Union. On 1st of July, the state of Somaliland, of its own free will, united with Italian Somalia, and on 18 May 1991, Somaliland restored its sovereignty and independence. Happy 18 May for all of you. Tervetuloa kaikille juhlimaan meidän kanssamme 18 May Somalilandin itsenäisyyspäivä. Somaliland on jo ollut itsenäinen 33 vuotta. Somalilandin hallituksen presidentti Musa Bihi Abdi, varapresidentti Abdurrahman Zeidei sekä Somaliland Liaison Office Suomen Somalimaan viraston Somaliland Young Ambassadors puolesta haluamme kiittää meidän erityisvieraita, etenkin sitä, että
he univattare la via tavassa etsena isiyuhna kansalme eli kansan edustaja Kimmo Kiljunen, kansan edustaja Maria Kuzinina and Helsinki varapormestari Juhanna Vartiainen. Eli hyvää Somalimaan itsenäisyyspäivää ja kiitos kaikille. mudane yaryooyinka waxaad ku soo dhawaataan caawa xafladda qaaliga ah 18 May Somaliland oo maanta ka dhacaysa Helsinki sahayankatu 26 waxaan leenahay dhammaan ku soo dhawaada xafladdan sharafta leh waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadnaqo dadkii nagala soo shaqeeyay xafladda iyo dadkii ka soo qayb galayba waxaan rabaa inaan halkan aan xuso Siciid walaashay Nuura Cabdillaahi oo runtii ii ahayd garab iyo gaashaan oo ahayd dhiiriyaha ugu weyn ee xafladdan iyo qabanqaabadeeda iyo walaashay Faa'isa Axmed oo ayaduna sidoo kale garab iyo gaashaan noo ahayd dhalinyarada Somaliland Young Ambassadors dalada guud ee Somaliland ururada jaaliyadaha Somaliland ee Finland waxaa sharaf maanta noo ah inay xafladdan qaaliga nagala soo qayb galaan maayar ku-xigeenka magaalada Helsinki Juhanna Vartiainen ya xildhibaan Maria oo ah xildhibaan golaha baarlamaanka ee Finland haddana u sharaxan baarlamaanka Yurub iyo Kimmo Kiljunen oo isna ah xildhibaan baarlamaanka Finland oo isna u sharaxan baarlamaanka Yurub waxaan leeyahay dhammaan dadka ka soo qayb galay waxaan idinku mahad celinayaa sida sharafta leh aad u soo ajiibteen maanta 18 May waxaan rabaa inaan idhaahdo 18 May waa maalin qaali ah oo qulubteena ku wada sawiran 18 May waa maalin qaran waa maalin aan la kala maarmaynin oo midnimada Somaliland ay tahay mid waa maalin loo baahan yahay in dhiigga loo shubo Somaliland oo laga wada shaqeeyo wada jir اعترافك Somaliland annaga oo midaysan waa maalin qaali ah maalin qaran weeye waxa weeyaan maanta qurbaan joognaa qurbahan waxa weeyaan inaanu ka faa'iidaysano in maanta dhalinyarada soo kacaysa aanu barno Somaliland waxay ku fadhido macnaha Somaliland uu yahay in laga tago qabyaaladda iyo waxa maanta dadkeeni qurbaha kala daadiyay maanta Yurub baan joognaa qabyaaladu cidna meel ma geynayso qof walba wuxuu ku joogaa waddanka Yurub waa 4 nambar qof walba 4 nambar ayaa mustaqbalkiisa jihayn karta reerna cidna ma jihayn karo qabiilo cidna jihayn karo laakiin maanta Somaliland way noo baahan tahay waxaan nahay diaspora dibadda ku baqa dhalinyarada Somaliland way noo baahan yihiin oo maanta Yurub ku dhashay waxay u baahan yihiin in annagoo wadajir ah ayna arkaan in annaga oo mataqaana aan barayno taariikhdooda iyo dhaqankooda waddankan aan joogno qofka bilaa taariikhdi waxba kama aha waxa weeyaan taariikhdu waxa weeyaan waa dhalashadaada waa ID cardkaaga weeyaan marka waxaan leeyahay Somalilandnimadu ha waarto waa mahadsantihiin dhammaantiin